بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبada aan aad ku xiiseeyo ku soo dhawaada muuqaalka xiga ee Hanaan English Officials. waaniga saaxiibkeen Maxamed Murcali Maxamed Arkay oo aad halkaan kaga barteen alabo in idin soo gudbiyo casharo wax ku Allah ku xiriir leh luqadda anfac badan ee Englishka. maanta insha Allah waxaynu qaadan doonaa phrasal verbs-ka qaybtiisii toddobaad ka bulshada. fadlan haddii ay tahay markaagii kugu horeeyay oo aad soo booqataa janaalka Hanaan English Official, ilaawin inaad subscribe saarato janaalka kadibna aad gambalaalka furato si aad u hesho muuqaalada xiisaha badan aynu bartayna soo gelino. mahadsanid. Number 1, back away. back away waxaa la yidhaahdaa cunid. He backed away, isagu wuxuu u cunay the spaghetti baastadu greedily, si dooninimo ah ayuu u cunay isagu baastada. Number 2, back away. back away waxaa la yidhaahdaa gadaal u bixid. back away waa gadaal u bixid. back away dib u bax. The snake is coming to you. maska ayaa kugu soo socday. dib ugu bax, maska ayaa kugu soo socdo. Number 4, before. before waxaa la yidhaahdaa sarifid. before waa sarifid. I was paying the money. money waxaan lacag u soo sarifayay for my mom. hooyadeyda ayaan lacag u soo sarifayay. Number 4, pay off. pay off waxaa la yidhaahdaa laaluush. Somali boys mean booliiska ama nimanka booliiska ee Soomaalidu take waxay qaataan pay off laaluush ayay qaataan ayay dhammaantoodu. The last number 4, plan on. plan on waxaa la yidhaahdaa rajay. What are you planning on? maxaad rajaynaysaa to be inaad noqoto in the future, mustaqbalka inaad noqoto maxaad rajaynaysaa. waxaan filaa inaad ka hesheen muuqaalka aadna ka bogateen. fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like saar, sidoo kalena share dheh, commentigaaga nagu soo gudbi qaybta faalooyinka. mahadsanid. waa saaxiibkeen Maxamed Murcali Maxamed Arkay. intayna muuqaalka xigay kaga kulmi doono waxaan idin leeyahay guuleyso meel walba aad ku sugan tahay, kana faa'iidayso waqtigaaga qaaliga.